xafiisyo badan aan tagnay oo aan kala hadalnay waxay noo sheegeen in la furayo horta mabdahan waa la isku waafaqay in la furayo saaxiibayaal soo dhawaada waxaan ku suganahay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda Kampala waxaa ku dhaqan mid ka mid ah jaaliyadaha ugu ballaaran ee Soomaalida ee ku dhaqan daafaha dunida waxaana ka furnayd mid ka mid ah xiriyaha qaxoontiga ee ugu ballaaran ee Soomaalida ugu badnayd ay ka dhooftay ama ay ka gashay dalalka Mareykanka iyo Canada gaar ahaan dalka Canada dhowrkii sano ee ugu dambeeyay haddaba laga soo bilaabo tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2023 mushkilad ayaa haysatay ama ka taagneyd magaalada Kampala iyo guud ahaanba dalka Uganda taasi oo gaar u ahayd jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan halkan xilligaasi waxaa la xiray ama la joojiyay qoritaanka iyo diiwaangelinta dhammaanba bulshada Soomaaliyeed ee u iman jirtay halkan inay ka mid noqdaan dadka qaxoontiga ah ee hoos jooga hay'adda qaramada midoobay ee qaxoontiga adduunka kuwaasi oo doonayay ama u socday inay u sii gudbaan dalalka Mareykanka iyo sidoo kale inta badan dalka Canada horta xarada waa Nakivale Soomaalida kaligeeda kuma sugna waxa ku sugan Rwandese, Burundese, Sudan qabaa'il badan oo Congolese ku wada sugan laakiin xirnaashaha xarada ma xirnay waxa xiran xafiiska oo ku yaala Kampala gaar ahaan qaybta registration-ka dadka cusub ee Soomaalida xiran mana ka xirna waxay ka xiran tahay oo kale registration sida hore aan u sheegay dadka cusub oo kaliya ka xiran tahay laakiin inta shaqooyinka kala caadi u socda muhiimad gaar ah in u leeyahay Soomaalida sababtoo ah inta badan Uganda burburkii wixii ka dambeeyay dad badan ayaa ka dhoofay dib u dejin ka helay dadku waxay u joogaan hadda inta badan dib u dejin inay helaan waxaad noo sheegtay in ay ka xiran tahay Soomaalida oo qura maxay tahay mushkiladda Soomaalida u gaarka ah ee loo xiray qaybta Soomaalida xirada okay tusaale ahaan horta waxa waaye registration-ka Soomaalida waxay leedahay qabiil kasta wuxuu leeyahay maalmo uu leeyahay jira Soomaalida maalmaha ay leedahay waxaa laga yaabaa nambarka loogu talagalay horta nambarka ka badan taga sababtoo ah qabiil gaar ahaan xilligii lagu dhawaaqay in group 5 Mareykanka uu sameeyay marka Soomaali badan meel badan ay ka wada yimaadeen marka buuqiina waa batay dhibkiina waa batay sababna annaga isku ah dib annaga isku filan dib maar annaga isku filan hal wax sabab loo xiro waxa kamid ah marka dhibaatada markay badatay buuqa oo batay hatta maalmaha ay leeyihiin oo kaliya kuma ekaadaane maalmaha kale way joogaan marka taas waxay keentay in go'aan laga qaato in ilaa waqti muayyan ah in Soomaalida laga joojiyo almost hadda sanad iyo bil way sii xiran tahay markaad u fiirisid nidaamka aad uma ilaalino ma Soomaaliya oo dhan laakiin inta badan ma aragtay marka la yiraahdo halka fariista sidaa sameeyo maalin fulaan kaaliya waxaad arkaysaa maalinta ay leeyihiin maalmaha kale kulli caadi inay u wada joogaan meesha arrintani bulshada Soomaaliyeed guud ahaan waxay ku yeelatay saameyn kala duwan dhanka sharciyada dhaqaalaha iyo sidoo kale dhinac kasta oo bulshada Soomaaliyeed saameynayay markii ay dadku imaan jireen oo kaarka loo imaan jiray magaalada socodkeedu uu fiinaa dhaqaalaheedu uu fiinaa qayb haday tahay dadka hoteelada haday tahay dadka ajinsiyada haday tahay dadka dukaamileyda haday ay tahay dadkaas oo dhan waxay ahaayeen dad mataqaana ku xidhan isaga waxa ugu fudud ee kaliya dadka tagaxsida haday tahay dhammaan dadkaas oo dhan waxa ahaayeen dad ku xidhan kaarka qaxoontiga dadka imaanaya in la soo qaado tagaxsida ka faa'iido jirtay in hoteeladii la dejiyo oo ay ku soo degayaan tagaxsi waxa ka faa'iido jiray dadka hoteelada magaalada u kireysan yihiin in meheradaha ay ka cunteeyaan waxa ka faa'iido jiray dadkii cunteelada ahaa oo dabcan markasta oo population-ka ama immigrant-ka wadanka yimaade ay hoos u dhacaan waxa hoos u dhacaya wixii la oran jiray consumption-ka ama waxyaabaha isticmaali jireen kadibna dhaqaalihi hoos buu aadaya si gaar ah aaneed ganacsiyada Soomaalidu meesha ay ku haystaan 90% wuxuu u adeegaa dadka Soomaalida ah Soomaalida halkan ay ku dhaqanna badankoodu waa qaxooti marka sanadkii dhammaa ay xirnayd meesha qaxootiga lagu diiwaan geliyo de magaalada hoos u dhac guud baa ku yimi oo dadkii immigrant-ka ahaa badan wixii diiwaan gashanaan wadanka joogana wixii aadeen Canada iyo America waa baxeen dad cusub oo la diiwaan galiyay oo la qaatayna ma jiraan sidaa daraadeed waxa hoos u dhacay
populationkii qaxootiga ahaa gaar ahaan ee Soomaalida ee ku dhaqnaa wadankan numberkii populationku hadduu hoos u dhacayna waxa hoos u dhacay economic growth ama koridii dhaqaalaha dadkii qofkii degaan raba ee raba inuu degana waxa uu ka faa'iidi jiray isaguna waxa ka faa'iidi jiray dadka tukaamileyda haday jodaradii laga gadanayo tahay furaashadii waxyaalo kale maacuuntii kale dhankii gaastii iyo dadkii petrolshinada ka faa'iidi jireen shidaalka gawaaridu ka qaadanaya dadka ugu xamaalayaan hadda waxaad arkaysaa dadka inta ugu badan oo takaasidii waa iska baakiman yihiin socodkii waa yaraaday dad waxaa jiray ganacsato ah oo guryo iska lahaa guryo qandaraastay oo guryaha laga kireysan jiray dad waxaa jiray bakhaaro iyo waxyaabahan cunnada ah gadi jiray dad waxaa jiray gawaari lahaa transportiga qaabilsanaa tuulooyinka iyo magaalooyinka ay dadku deegaan u kala qaadi jiray waxaas oo dhan waxay u shaqeyn jireen dad Soomaaliyeed numberkii Soomaalida maadaama uu yaraaday intaas oo dhan waxa ku dhacay shaqo la'aan ama macaamiishooda hoos u dhacday hadda waxaa batay dadkii baxayay oo aadayay Canada aadayay ama Yurubta kale aadayay qofkii safarkii dadkii imaanaya batay waxa yaraaya dadkii soo galay dadkii magaalada markii hore joogayba ee aan ma taqaanaa baxayn waxay biloobeen iyaga inay baxaan kadib meesha waxa ka dhalanaya dadkii biilasha loo soo dirayay tusaale ahaan haddii qofkii maanta loo soo diray $200 ay ugu yaraan ay baxdo intii meesha xineed ugu yaraan waxaa baxay dad ku dhawaada ilaa 500 kun oo qof baxday ala qof $200 loo soo diray dhaqaalaha inta leeg waxay galiyeen magaalada caqabado badan buu leeyahay sharci la'aanta dadku wadanka waa lagu soo wada qaxay kaar qaxootina ma hayno dhibaatooyin badan baa jira dhibaatooyinkaas waxa ka mid ah nolosha wadanka inaad qayb ka ahaynba sababaha koowaadna waxa waaye inaad goobo waxbarasho tagi karin inaad soo adeegan karin inaad loo qaad martaba lagu xirayo askarku daba taagan tahay waxyaalo badanna oo dhibaatooyin aan jiraan nin guris kaga jira oo sharci haysanin dhibaatooyinkii qabsan lahaa nin hadda xidhan waxa ma dhaano intan Soomaalida dhaxdooda kama dhaxbaxno marka caqabadooyin badan oo kale waa jiraan anaga aad bay noo saameysay oo haddaan jisleedanahay waxa ugu badan dadku naga soo dalbanayeen waxay ahayd in dadka soo galaan oo fisaal naga soo dalbadaan fisaashii dadkii naga soo dalbanayeen oo noo iimaaneysay markii dadkii socodkoodii yaraaday oo meesha xinaatay fisaashina waa naga istaageen qofkii laba ama interview u iimaanaya ama waxbarasho u iimaanaya ama arrimo caafimaad u iimaanaya wuxuuna u iimaanaya uun mooye intii kale dadka waa naga istaagtay marka waxaan ka codsanayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan safaaradda Soomaaliya iyo dadka arrimaha Soomaalida daneeya inay kaar qaxootigaas naloo furo naloo dhib yareeyo si aan nolosha caadiga ee wadankan qayb uga noqono qof de bila sharci ah waa qof xabsi ku jira waxa ma dhaamo maalin dheer waa xidhnaanaysa hadii lagu arko adiga bila sharci ah almuhiim sidaas sabab anaga leh laakiin waxaan rajaynaynaa in dib loo furo idinku ka jaaliyad ahaan dadaal badan baad sameyseen xafiisyo badan baad gargaraacdeen ilaa waxaad gaadheen xafiiska madaxweynaha dalka bal faahfaahin naga sii dadaalada aad bixiseen ilaa hadda horta waxaan ku qasbannahay dhibaatada annagoo dhan ayna wada saameysay annagoo dhan ayna wada saameysay waad arkaysaa waxa waaye dadka nolosha oo wadanka ay ku nool yihiin dadkoo dhan wada sina marka dhibaato badan ha jirta ma habeen ha noqoto maalin ha noqoto su'aalaha lagu weydiinayo goorma la furaa ama qolaa waxay sameynaysaa waxay leeyihiin maalin fulaan la furaa markaas waxaad arkaysaa xafiiska dhan in la soo buuxsan marka xafiisyo badan aan tagnay oo aan kala hadalnay waxay noo sheegeen oo kaliya in la furayo laakiin exactly time-ka la furayo horta mabdahan waa la isku waafaqay in la furayo weli ayadoo weli hadda la isku haysto in Kampala sideedii hore may u furnaanaysaa manaka Valley la geyn doonaa marka ilaa hadda laakiin mabda ahaan waa la isku waafaqay in la furo laakiin farsamo ahaan ay u xirantahay hadda dhinaca xafiiska maamulada marka maadaama dad badan oo sharci ahaan iyo wax badan kaga xidhan yihiin ay joogaan wadanka ma waxaan ku qiyaas karnaa in dhawaan la furi doono mise inaan يعني وقت laga yaabo inay waqti aad badan qaato sanada gaaray والله su'aashaas jawaabteeda waxa laga weydiin karaa xafiiska OPM xafiiska ma aragtay qaxootiga qaabilsan xafiiska wasaaraha qaybta qaxootiga qaabilsan laakiin waxaan ognahay in la furay wad mahadsantahay gudoomiye waxa wadanka ku sugan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood markii hore rajo qabay in kaarka markiiba la furi doono ama ay markiiba heli doonaan laakiin wadanka markay yimaadeen waqtigu ku dheeraaday sharci aan haysanin laga yaabo in duruuftooda nololeed ay adag tahay
dadkaas fariinta aad u diri lahayd ka gudoomiye jaaliyad ahaan maxay tahay والله وأرنتها سيدا أرنتها دوش شاكتي ضدا waxay ku soo talagaleen oo kaliya hal bil inay ku qaadato ugu badnaan laakiin waqtiga ku dheeraada sanadii la gaartay duruuf adag inay ku nool yihiin markaad u fiiriso dhalinyarada rag iyo dumarba duruuf wali waxaa jira dad badan oo caruur wata jira dibkaas marka waxaan dhihi lahaa horta waa la furayaa waqtiga la furaayana waxa waaye ma dhihi karno waqti fulaan laakiin waxay noo sheegeen in la furaayo marka laba arrinbo qofka inay isku dulqaataan ama haddii macnaa fursad ay heli karaan oo dhaqaale ay u haystaan in meelihii ay ka yimaadeen ay ku laabtaan laakiin waxaan noo sheegeen mas'uuliyiinta in la furayo gudoomiye aad iyo aad baad mahadsantahay